baabuurta bielka markaan waxaa laga rabaa oo lagu soo rogay inay isdiiwaan geliyaan hay'adaha nafsiyada qaar waxaa maaragtay ka sameeyey isu soo bax iyo cabasho gaadiidleyda maaragtay bielka gobolka banaadir ciidamadeena waa la xiriirnay see wax u jiraan waxaan rabnaa nabadgelyadan arkaysaan iskama imaanin process iyo dadaal iyo istiraatiijiyad iyo yacni casri ah oo ciidamada nabadgelyada ay sameeyeen ayay ku imaatay askari kaliya meel taagan amni laguma sugo baabuurta bielka markaan waxaa laga rabaa oo lagu soo rogay inay isdiiwaan geliyaan hay'adaha nabadgelyada gaar ahaan nabad sugidda inay iska diiwaan geliyaan baabuur walba inuu diiwaan gashan yahay taargadiisa waa la og yahay laakiin shufeerkiisa milkiilihiisa odagiisa dhaqanka kulli waa la diiwaan geliha baabuur sumadlaabo ah inuu beledkaa marmaro lama rabo hadhow baabuurkii dhib ka dhaco ilaahay ma qadare hadhow waxaa la rabaa ciddi laheyd ciddi damiin ka aheyd ciddi shufeer ka aheyd kulli ciddi kirishbey ka aheyd kulli inay caddaa la rabaa marka haddii lagu yidhaahda baabuurkaaga diiwaan geli macnaheedu ma ahan inuu beri mataqaana adig wax lagu yidhahda baabuurka tag iska soo diiwaan geli wixii lagaa dalbado amniga inuu sugan adig laftarkaaga ay qayb kuu tahay cabasho waxay na soo gaartay inaad leeyihiin lacag baa nagala qaadaya wax lacag ah oo laydinka qaadaayo oo aan ahaynin lacagta busteejada dowladda hoose ee soostada la yidhaahdo oo tan iyo 60 ilaa yoomina hada laydinka qaadayay waxaan ahayn oo laydinka qaadaayo ma jirto waa kana waa ay garab taagan yihiin taliskii nabad sugidda gobolka banaadir waa ay garab taagan yihiin wax lacag ah oo la xiriira arrintaas oo laydinka qaadaayo ma jirto laakiin diiwaangelinta haddaad diido hadda tallaabo sharciya haddii lagaa qaado waa xaq baa loo leeyahay in tallaabo sharciya lagaa qaado waa arrin guud oo biriga mataqaanaa la xiriirto amniga bulshada marka baabuurkaagoo hal maalin intaa wado taliska iyo meesha lagu asteeyey aa geyso oo lagaa diiwaan geliyo daqiiqadahaas waxba kaa dhibi maayaan marka maxaa u diideysaa ha diidin jidadkana ha xirin cid kastee marka abaabul oo arrinkaas ka dhan ah diiwaangelinta ku dhaqaaqda macnaheedu waxaa loo aqoonsanayaa ciddan kale leh marka hadhow de in lala xisaabtamo haddii ilaahay ku leeyahay sharci la horgeeyo waxay su-aalo la weydiiyo aa ka dhalanayso marka waxaan rabnaa diiwaangelinta u hoggaansama waa qayb ka mid a nabadgelyada lagu sugo